magacaaga muxuu ahaa nuur marka adaa ka yimi soma ikhtiyaar uga yimi haye imisa ka tirsaneed iyaga shaab 5 sano بسم الله الرحمن الرحيم halkan aanu joognaa waxa weeye distankii xirada daraawiishta ciidanka Puntland nabad ilaalinta u jooga meesha la yiraahdo Afurur waxaan salaamayaa dhammaan ciidamada jamaahiirta oo goobtan ku eg waxaan kaloo salaamayaa dawladda oo madaxweynuhu uu mudan yahay sidaad aragtaan halkan waxay la joogaan nin saaxiibkeeya oo ka soo goostay buuraha Calmadow ciidanka oo hawlgal ku jira ayaa ninka uu isu soo dhiibay runtii waxa weeye ninkaasi wuxuu ka soo baxay al-shabaabka waxaana leeyahay sida ninkaasi qorigiisa iyo booshkiisa hor yaaleen cafis madaxweyne ayaa furan cid allaale cidii madaxweynuhu cafiska isu soo uu fidiyay wali cafisku uu furan yahay oo buuraha Calmadow ku jira cidii cafiskaas inta uu furan yahay ka soo bixi weeyda sida ninka kalsoonidiisa iyo qorigiisa hor yaaliyo booshkiisu ciidankuna gacan fiican bay ku qabteen oo waa soo dhaweeyeen saaxiibadii wuxuu ugu baaqayo uu ka yimid isaga ayaa sheegi doona cafiskaas intuu furan yahay sida in cid kasta isu soo dhiibto hadalka waxa dhameeyay taliyaha guray ninka waagu markuu bariyay baa ciidamada howlgal u baxay ay ku qabteen soona beeska Afurur waxaan ugu baaqaynaa cidda uu ka yimi oo hadda halkan laga daawanaysa inay sida ninkaas gartaan dantooda ninka kan waxa la yiraahdaa Nuur Maxamed Cabdiraxmaan macallin wuxuu soo galay gacanta amniga wuxuu soo galay maanta oo taariikhdu tahay 25 bisha 2 2025 ninkaas wuxuu ka yimi buurahaas Calmadow wuxuu ka yimi ciidamada al-shabaab ee buuraha jooga oo ka howlgala xornimadiisa ayuu kaga yimi waa mahadsan yahay wuxuu ku jiraa gacanta amniga wuxuu ku jiraa gacanta dawladda dib ma qabo mana heli doonto mana qabi doono dadka uu ka yimi waxaan ugu baaqaynaa oo u sheegaynaa inay sida ninkaas u yimaadaan dawladda isu soo dhiibaan wixii dawladda u yimaado waa cafis bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ka hadlaya afka booliska jooga Afurur kulin shaqeeya taliyaha ciidamada Afurur shaqeeya waxaan ugu baaqaynaa waxa saaka loo yimid al-shabaab sarkaal loo sheegtay ninkaas waxa weeyaan waa soo dhaweynay si fiican baan ula macaamilnay wixii kale oo maqan waxaan ugu baaqaynaa inay sida ninkaas oo kale isu soo dhiibaan oo u yimaadaan oo uga soo baxaan buuraha ay ku dayacan yihiin oo ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الرحمن الرحيم maanta taariikhdu 12 bishii 2 2025 sida taliyaha guri iyo saraakiisha kale ay sheegeen waxa gacanta ciidamada difaaca Afurur soo galay ninkan saaxiibkaya Mr. Nuur ka soo goostay nimankan jooga buuraha Calmadow ee al-shabaab ninkaas saaka aroonimadii hore si saraakiisha hore soo sheegtay ayaa ciidamadu hawlgal ay ugu baxeen sahan iyo shaqo ayuu isku soo dhiibay saasa lagu keenay uu ku yimi sida la sheegay gacan nabadgelyo iyo gacan amni ku jira sida horeba loo sheegay waxaan ugu baaqaynaa nimanka midharka oo xabadaha oo ku haray meelaha meeraysan iyo buuraha waxaan u sheegaynaa inay laba arrimood iyaga u doortaan kala doortaan sida ninka inay soo dhiibaan oo cafiska madaxweynaha dawladda ay qaataan oo soo loo macaamilo oo ay dadka ka mid noqdaan iyo in haraagaha meelaha wareegaya in iyana shaqo laga qabto oo sida caalamka ka dhacday buurta lagu soo galo labada qodob kala doortaan Abdullaah adiga magacaaga muxuu ahaa nuur marka adaa ka yimi soma ikhtiyaar uga yimi haye imisa ka tirsaneed iyaga shaab 5 sano marka xagga magacaaga afkarashada xarakiga Salman Bakool maxaa ugu baaqaysaa saaxiibada nimanka ka tahay burjiga maxaa ugu baaqaysaa maanka baaqay insha Allah taala intii ku baaqayna gabalkaasi walaalteedo inaan ku yamina ana tashar magal intii maanka ku baaqay mina arlaas oo iiga yaramina intii ku baaqayna ay dawladdu soo dhiibaan iska soo wada baxaan oo kaliyoon anaga daamina has dhiiban yaan ka baaqayna nabadgelyo waa haysataa sabab nabadgelyo haysato shar magabalan wala dhimay mila ciidanku si fiican bay ku soo dhaweeyeen insha Allah taala walaalteedo maanka baaqay yoon si fiican u nahay dhawaan risaaqasin kumaadina